الله وبركاته أقيارتيدا قروحدا بدن aad iyo aad aan idin salaamaya meel walbo aad dunida dacaladeeda ka joogtaan maanta maxaa idin wadaa keeg dhalasho oo cunug yariis ah adi ilaa 10 jir wixii ka hooseeyo lambarka doontada ku qoran kartaa muhiim ma ahan in mar walba laba ku qorataa maasha Allah sis quruxda badan u jeedaan oo noogu soo baxay lagama sheekeyn karo waxaan idin leeyahay ka faa'iideysi wacan sida aan u sameeyay iyo waxa aan ka sameeyay aad iyo aad u fudud yahay walaalayaal waxaad u baahan tahay 170 gram oo sokor ah iyo 170 gram oo bur ah koleeto burka iyo sokorta isku mid meeshan waxa ku haystaa 15 gram oo jukuleedka qaraarka ah budada ah iyo 5 xabo ukun ah waxa inta soo kaliya kan hoose ka sameynaysaa aad u fudud yahay maasha Allah wax arfisa iyo waxba kuma daraya aniga kale adiga daa jeceshada ma arfisa ku daran kartaa ama liinta maqaarkeeda kor ku darsan kartaa maasha Allah aad u fudud yaa ku dheh waqti weyn kugu ma qaadan doono ka faa'iideysi wacan شاء الله وكاس أساس قروح بدون النوجو صباح وحنقلين دونا فرنا ذا بقول يتدوات دقيقة 4 دقيقة ماشي ما حنكويستا حبات مسكربونة كريم كي هدرتان ديارنايا 50 جرام أو سكرت بدود ما روا إنا سكرت كبديو ويا عنقريسة ويا دلشديسة iyo baana koleeto waa shib cream oo waxa 350 ml hala soo kaliya way creamka wax kale kama sameynayo waa qasaya marka qaso way la arki doontaan كيكي وكسو بحي واججري وكاسا كل جيسان وانك ججراد وحمرنا كريمكي ما شاء الله سيارة فضة ومرنا كيكا وحنسو مري بي اي سكر مسو مرين عانا اي سكر مركا حنسو مري بير وحنكو داري سكر ير كي بعد قلاص وسو مري سيو كريمكا وقوداقو ما شاء الله سيس يرتفضة ومرنا كبعد ويسود الساسارة وايو كيك وحن قيبي 3 حبو قيبته واسو قيبته كور إيها الحبو لحو واسوس أمسيوينين وامد عنقير
waan ugu talagalay inaan saas u sii weyneynin. maasha allah. walaal please haddii aan ugu cusub tahay subscribe, booqashadaadana waa ku mahadsantahay sida quruxda badan aa noo soo booqatay. halkaasoo kale waa soo dhameeyey, waa isoo dul saaray 3 xabo. haddii aad rabtid inaad simtid keega oo wax oo kaa yeelanin, waxaa subinaysaa geedka siriska oo ah hadda kuma marina, waa soo kululeynaysaa dabka cuntada lagu kariyo kusoo kululeynaysaa, kadibna waa ku simeysaa. wuu ku sinmaaya. ani waqti badan ma hayo, wax yar waa simaya laakiin zaaid uma simaayo. laakiin adi daartid zaaid inaad u sintid oo maasha allah qurux ku noqdo, waxa u simi kartaa maasha allah si kale. horta wax walba wax lala dhashtay ma jiraan, wax walba waxa waa isku day waaye. marka adinkana waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala haddaa ka heshin inaad isku daydiin, kabacdina waa keeni doontiin insha allahu tacaala. ha isku dayin hal mar, hadduu mar koowaad kaa halaawo ha niyad jabin, weligaa allaha lama niyad jabo. waxaan idin leeyahay weligii niyadiina raaca, haddayse wax sharci idin ahayn oo wax kheyr ay tahay. insha allahu tacaala waxaa rajeynaysiin waa ku guuleysan doontiin insha allahu tacaala. walaalahayga qaaliga ah, sida quruxda badan oo ii daawanaysaan waa ku mahadsantihiin iyo waqtigiina quruxda badan. please haddaa nagu cusub tahay mar kale subscribe, haddaa hore noola joogteen waa ku mahadsantahay waqtigaaga quruxda badan. mar waliba ma ka daalayo mahad celintiina. waa kaasa sidaas kusoo wadi doona insha allahu tacaala. sidaa u simaaya walaga inay waqti yar kugu qaadato, laakiin iska dul qaado, ilaa wax quruxa rabaa iyo waqti yar rabaa inaan ku sameeyo, macquul ma noqonayso. waqtigu ma badno, laakiin macnaha simitaanka sameynteeda maasha allah. kreemkeeda waa aragtay, waa kreem aad u fudud, wax weynna aan ahayn. sameynteedana waa aragteen waa aad u fudud. hadirtan waxaan saarayaa lambarka wiilkeyga uu buuxiyey maasha allah. lambarka doontida jaran kartaa, geedka saara waa inaan ku shubo. waa kan lagu sharxo keegyaasha. soo shubaya si macnaha labadii banaanka u timaado, kaasna uu banaanka uga shubmo labadii geesaheeda. kole lambar alaali iyo lambarka uu cunugaaga buuxiyey ama uu buuxinayo aa saaran kartaa. markaas xitaa hadduu yahay keeg weyn, 2 ka badan aa saaran kartaa, 12, 20, waxaa doontid. koleeto nambarkii markaas cunugaaga ama waalidkaaga ay buuxiyeen aa saaran kartaa. maasha allah. wiilkeyga waxaan leeyahay hambalyo, sanadkan ku curtay quruxda badan. marka waa ku mahadsantiin adinkana waqtigeena mar waliba kama daalayo mahad celintiina iyo sida quruxda badan oo ay la joogtaan. saas oo soo simaaya si oo hadhowtii labada dusheeda aysan waxba ugu daadaadanin oo nadiif cad ee u noqoto. kabacdina warqadaasi waa ka qaadayaa. warqadaas waa mid aniga soo sameystay, ma ahan wax weyn. adaa wax walba sameysan kartid. waxay u baahan tahay kaliya inaad fakar heshid, waqti iyo juhdina aad siisid. hadirtan waa ka qaadayaa labada si fudud, weliba ma ahan wax saas u sii weyn. markaa dhammaystid labadaada ka qaado, wareer ma jiro. khalaas. markaas labadii markii aan ka qaado quruxdaas kusoo baxday, wax dusha kama saarno. labadii oo maasha allah quruxa soo baxday maasha allah. haddana waxaa u gali doonaa sharaxaada. macna sharaxaad waxaa ku sharxi doonaa insha allahu tacaala isla kreemkii aan mariyey aan waxaan kasoo reebtay haaf. markaas waxaan kusoo shubtay bacdaasiti, waxaa soo gashtay cagaasiti oo waxa lagu sharaxo. kabacdina kuus yaris geesaha la kasa saaraya, meesha babanaan oo ujeedid oo kan ku daadaati. khalaas. kabacdi qurxa ay noqonaysaa. keega dhalashada ma ahan wax weyn. haddii aad baroobaysid isku daydid, wax walba waxay u baahan tahay isku day aad samaysid waa keeni kartaa. marka waxaan rajeynayaa walaalahayga qaaliga inaad isku daydiin inaad samaysatiin. hataa saas soo dhameen waaba dhamaaday keega. hoosna waa ka marinaya qaybta hoose oo geedka yarka oo keega la saaro hoosti. keega meesha ku dhamaado hoos macnaha ma aqaan si aan kugu sheegay. sorry af Soomaaliga dhamaaday. meeshana waa kasoo saarayaa, waa uga soo sharaxayaa. hoos ku dhamaatay. waxaa ka dhiga bobsiis. haddii oo bobsiis ka dhigi lahayn videoga idinku sii dheeraan lahay.
qaybtan boobsiisa wax yar ka dhigay inaa fahantiin aan rajeynaya markaas usoo saaraya qaybta hoose watana aan sheegayay ida qaybtaas kusoo dhameyn waa dhamaatay keeki dhan saasoo ku dhamaaday saasoo ku qurux badan yahay wiilkeygana zaaid ugu farxay maasha Allah anna waxaan rajeynayaa in ciyaalkiina mar walba ka faraxsiisiin wax alaalay waxay ku farxayaan u sameeysiin oo waxba aad u soo gadanina macnaha waxa raqiis aad u yihiin wax qaali ama ahan hadii laakiin aad dhahdid keek dhalasha soo gadana waxa laga inuu qaali zaaid kugu noqdo marka waxaan rajeynayaa insha Allah taala ina soo gadatiin gurigeena ku sameystiin ciyaalkiina gacantiina uga faraxsiisiin gacantiina waxa ku sameysan iyo waxa u soo gadid cunuga isku mid ma ahan waayo wuxuu ku farxay maasha Allah hooyada iyo sameeysa keek qurux badan laakiin marka u soo gadid wuxuu dhahaa waa lii soo gaday isku mid ma ahan marka ani raali ahaanteed iyo ciyaalkeyga sida ka arkaybo maasha Allah marka u soo gado way farxayaan laakiin zaaid uma farxayaan laakiin marka ani u sameeyo maasha Allah ma la soo koobi karo farxadooda marka wala idin salaamaya walaalahayga quruxda badan waa ku mahadsantiin waqtigeena quruxda badan iyo sida quruxda badan ay daawateen maasha Allah mahad celinteena meeshan kuma soo koobi karo sida quruxda badan keega noogu soo baxay waxaan rajeynayaa insha Allah taala isku day wanaagsan iyo ina ka faa'iideen igraal naqdada waqtiga idinka qaatay aad ka faa'iidinina aada uga xumahay way waxa jeclahay mar walba inaan wax idin faa'iideeyo ma jecli inaan waqtigeena idinka dhumiyo insha Allah taala waan rajeynayaa inaan ka faa'iideen waa ka saameyski sidaas quruxda badan ugu soo baxay keegi markii loo saaray burkaas kaleeto idin soo galiyay oo aad u jecel yahay wiilkeyga ilmahaaga waxay jecel yihiin isku day inaa u sameysato labadiisii sano oo dhashtay loo gelinayaa maasha Allah ma laga sheekeyn karo waxaan idin leeyahay farxad igu noolaada dhammaantiina aad iyo aadana u mahadsantihiin waqtigeena quruxda badan iyo sida quruxda badan oo ila joogtiin haddaad ku cusubtahayna please mar kale subscribe like comment waa dhiirigelinteena assalaamu calaykum